Audio Jungle. Audio Jungle. tan iyo intii aanu soo wadnay cilmi baadhistan dhakhaatiirta cilmi baadh waxa weeyaan koob iyo 20 sano marka laga soo bilaabo 1990 iyo ilaa maanta koob iyo 20 sano koob iyo 20 sano marka xagga cudurka loo yaqaan HIV AIDS-ka guulihii laga gaaray iyo hadda ugu dambeyntii adeega daawooyin ee la bixiyo baynu kaga hadlaynaa halkan aynu kaga hadlaynaa boardkan aynu meesha ku dhijinay waxa weeyaan ujeedada laga leeyahay adeegan daaweyntu horta waa ka dabartirka fayraska HIV Soomaali daliya dabadba meelay joogan waana adeeg hadda socda oo waxa weeyaan howlgal ballaaran aan ka fulinay Soomaaliya xaruntuna ay ku taala Hargeysa dawadana laga diro lagana bixiyo marka sanadadan dambe halkaas ayaan howlgal weyn ka sameynaa xanuunkan qof kastana meesha uu jooga lagu geeyaa gurigiisa si qarsoodiya ayuu qof kastaba dawadiisa u qaataa wana howlgal ballaaran marka tawaabada koowaad ee aanu qaadno waxa weeyaan daawooyinka horumarinta daawooyinka dawada HIV-ga disha oo ah dawo farmasi la habeeyay oo sidan aanu u diyaarino 12 caag aanu u diyaarino iyo difaaca dhista oo qofka la baro oo meesha uu joogo qofku marka isagu oo ku samaysto iyo dawooyinka oo lala qaato adeegyada laga siiyo xarumaha xanuunkan sida Muqdisho Garowe Hargeysa iyaduna taasna waa lala qaadanaya waxa soo raaca dhir aan gadaal ka horumarinay oo iyaduna awoodii siyaadisay aad iyo aad oo toddobaad kaliya qofka midabkiisa ku soo calinaysa fudayd badanna uu dareemayo laakiin maalmaha hore culays iyo xanuun uu ku dareemayo marka qofka adeega loo bilaabayo dawo ka hor waa in la baaro tirada HIV fayraska HIV waa in la baaro marka qalabka lagu baarayana waa qalabka soo saara tirada qalabka ugu dambeeya adduunka ee maanta lagu hubiyo xanuunkan PCR baa la yiraahdaa kaas waa ugu dambeynta marka lagu hubinayo laakiin waa qalab la adeegsado inkastoo dadku aanay jeclayn inay iyagu marka ay isku baaraan markaas $75 halkii mar yahay laakiin waxa la adeegsadaa feeraluurka iyo aliizaha marka labadaas waxa weeyaan iyaga laftoodana waa lagu baaraa talabaad waa dawada dilaysa oo la qaato 8 saacba hal mar ayaa la qaadanaya oo marka matalan qofka hadduu salaada subax oo kala qaato ama 7 subaxnimo kala qaato salaada casarna uu qaadanaya waxa uu qaadanaya 12 habeenimo qaadanaya marka afartii maalin waxa la qaadanaya 20 gram ayaa la qaadanaya 20 gram way dawadani waa dawo farmasi weeyaan marka waxa la qaadanaya afartii maalmood 20 gram bishii waxa la qaadanaya 8 caag oo 8 caag mid kastaba uu ka kooban yahay 20 gram lixdii bilood waxa la qaadanaya 48 caag ayaa la qaadanaya marka lixda bilood marka la gaaro intaas ay dawadaasi kooraska hore ku eegyahay ee dawada ah marka waxa bilaamaya marka qaybta labaad oo iyaduna ah 3 bilood marka 6 bilood la qaadanayo 3 bilood markuu qofku wado dawadu waxay dilaysaa 90% fayraska HIV-ga way dilaysaa marka 5 waxa weeyaan iyaduna 5 bilood waxa bilaabma negative-ka marka qofku hadii uu nisbada fayraska ku jirta marka jirkiisa ay tahay 40 iyo wixii ka hooseeya HIV-gu uu yahay marka qalabkan lagu baaro 40 iyo wixii ka hooseeya tiradiisu negative-ka wuxuu ku gaaraa 5 bilood ayuu ku gaaraya matalan qofka hadii uu ka badan yahay dadka waxa jira qaar 6 kuna qaar 7 kuna way badan yihiin markaas hadba difaaca sidoo u dhisan yahayna way ku xiran tahay feeraluurkiisu marka feeraluurka marka lagu eegayo ama PCR lagu eegayo ama aliza lagu eegayo haddana waxa la eegayaa CD4 waa inuu ahaado 500 ilaa 1500 waa inuu ahaado difaaca jirku hadii uu ka yar yahay oo difaaca jirku uu ka yar yahay 500 uu ka yar yahay 200 uu yahay 50 uu yahay difaaci uu baabay marka waxa weeyaan sidaas waa ka taxadirnaa waxaan siinaa dadka dawooyin markiiba soo dhisaysa difaaca oo 500 aanu marnaba ka hooseynaynin qofka wax ku soo haraan markaas 5 bilood kadib waxa la siiyaa bukaankaas waxa la siiyaa marka dawada ayuu sii wadaya
dawada ayuu sii wadayaa ilaa uu ka soo baxayo uu ka wada bogsanayo uu soo baxayo negative uu ka soo wada baxayo oo jirkiisa saa ay kaga daba tirmayso haddaba waxa weeyaan nidaamkan daaweyntu waa ka maanta dunida ugu horumarsan laakiin lagama waxa weeyaan sajilin oo lagama diiwaangelin hay'adda caafimaadka dunida iyo waxa weeyaan wasaaradda caafimaadka ee dawladaha maanta caalamka lagama diiwaangelin waana nidaam farmasi qalabka lagu baadhayana waa qalabkii waana nidaam akaademigii ku dhex jira laakiin iyagu hadda waxay adeegsanayaan daawooyinkan oo waxa weeyaan awoodoodu ay tahay replicationka amaba inuu bata viruskan HIV-gu in la joojiyo laakiin nidaamkaasi aad iyo aad buu dambeeyaa laakiin nidaamka horumarsan waa nidaamkan haddaba intaan laga diiwaangelin daawadan waxa weeyaan hay'adda caafimaadka dunida iyo wasaaradda caafimaadka caalamka dawladaha waa in hawlgalka iyagu uu ku ekaado Soomaalida gudaheeda waa Soomaalida gudaheeda waxa weeyaan aad iyo aad ayaan wax uga qabanaa xanuunkan ayaan wax uga qabanaa kaba soo qaad sawirka halkan ku yaala wuxuu ka turjumayaa xarunta Hargeysa boorkeedii buu ka turjumayaa xaruntaas waxa weeyaan boosta ayaa loogu diraa haddii Muqdisho tahay haddii dabadaha tahay boosta loogu diraa haddii ay tahay Puntlandna waxa loogu diraa gawaadhida bari iyo galbeed ayaa loogu diraa saas ay u qaataan qof kastaana waxa uu nagala soo xiriiraya waxa weeyaan intan oo cinwaan ayuu nagala soo xiriiraya marka online treatmentigaas aan dadka ku daweynaa waayo xanuunkan dadka lihi ma ogola inay cid ogaato marka sida nidaamkaas ayaanu u raacnaa xanuunkan la yiraahdo HIV/AIDS marka taasina waa dawooyinkii oo sawirnay oo ka taagan tan weeyaan iyaduna waa dawooyinkii oo sawiran weeyaan marka runtii dalabka dawooyinku aad iyo aad buu u sareeyaa waayo dadka waxa weeyaan dalbanaya ayaa aad iyo aad u badan marka qorshahani waxa weeyaan mar haddii aanay maamuladii in badan oo TV-yada iyo uga sheegnay aanay maamuladan Somaliland iyo Soomaaliya iyo Puntland aanay wali iyagu dhagba jabaq u siinin inay nidaamkan la eegaan oo cilmigan marka haddii ay nala eegaan say wadanka ummadda Soomaaliyeedna looga faa'iideeyo beesha caalamkuna ay uga faa'iideysato oo loo sajilo oo marka looga dhigo dawo caalamka ka dhaqan gasha haba ahaatee waxaanu anagu sameynay markaas haddii taasi aanay jirin inaanu saan horeba u sheegnay anagu aanu hawlgal sameyno marka hawlgalkan waxa aanu ka sameynaa wadanka iyo dabadaba waxaanu ku eegayay Soomaali kaliya qof aan Soomaali ahayn anagu dawadan ma siino waayo dawadani dunida kama sajila laakiin dawadan waxtarkeedu intaas aan soo sheegnay ayuu yahay marka waxa weeyaan waanay jiraan cudurro kale oo sanoo kale iyagana loo horumariyay iyagana insha Allah goobtoodii iyo goorteeda ayaanu sheegi doonaa laakiin xagga xiriirka daa'iman waxa weeyaan dadku waxay nagala soo xiriiraan waxa weeyaan Facebook-ga ama YouTube-ka ama WhatsApp-ka ama email-ga qalabkaas sahlan maanta ay nagala soo xiriiraan marka qorshahani waa qorsho wadaniya qofka haddii uu yahay marka dad waxa jira aan dawadi kareyn hada qiimo tahayna aan karahaynin marka qiimihii yaraa ee macna lahayn dadka aan karahaynin iyaga laftoodana waxa la siinayaa dawo qof bila dawo meeshan ama jiro waa mashruucan waa mashruuc wadaniya oo ummadda Soomaaliyeed wax loogu qabanayo ma aha nidaam ganacsi lama dhigin nidaamka ganacsigu marka caalamka laga sajilo markaas uu nidaam ganacsi galaya laakiin ilaa hadda waxa weeyaan waa adeeg wadani waa hawl qaran oo loogu qabanayo ummadda wax marka si kastaba ahaatee nidaamkan runtii lafteeda waxa kamid ah dhakhaatiirta Soomaalida xarumaha dawada laga bixiyo ama Muqdisho haato ama Hargeysa haato marka dadka dawooyinkan la siiyo oo marka dawooyinkii dadku ay qaataan oo marka feeraluudkii ay ku baaraan ay arkaan marka in tiradii xoog isu dhintay dadku uma sheegaan uma yiraahdaan dawadan aanu qaadanay laakiin iyagu waxay weydiiyaan maxaa qaadateen maxaa sameyseen maxay ahayd siday ahayd way isugu soo ururaan marka runtii waxaan u sheegnaa dhakhaatiirta laftoodana dawadani dalka gudihiisa ka shaqeynaysaa waxa weeyaan sida uu ogaada intaas aynu ku soo koobaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh